wardegdeg hadda soo dhacay Senegal oo laga qaaday koobkii Afrika waxaan la siiyay Morocco kadib markii guddiga CAF ay go'aamiyeen natiijada kaba dambaysta ahayd waxayna ku siiyeen markaas ay yiraahdeen waxa u qalmo koobkan Morocco rabshadii ay sameeyeen sidoo kale garoonka ay ka baxeen Senegal ciyaartii oo la daahiyay marka guddigu waxay go'aansaday inay meeshaas Senegal koobka ka qaadaan Morocco ayadana waxa laga yaabaa Ibrahim Diaz markii uu rigooraha la gafaayay ama soo yacni laga qabtay sida fudud waxa laga yaabaa inay Morocco aysan rabin markaas in sumcad xumo gurigeeda ay ka dhacdo marka sidoo aragtiin kumantii ku soo qora ma la siiyay oo muu qalanta Morocco mise ciyaarta Senegal ayaa koobka u qalanta oo wali koobkaas wuxuu ahaa koob ay keensadeen Senegal si cadaalad ah bal ku soo qora kumatiga Ibrahim Diazna oo hintii iyo sidoo kale dadka oo ku xanaaqsanayeen taageerayaasha Morocco hadda way cafin doonaan marka ma u dabaaldegi doonaan reer Morocco mise kadib 50 iyo ilaa 45 maalin kadib koobka xamaasadiisu waa isku dhamaatay ciyaartooygii reer Senegal markay maqleen sawirro soo dhigeen barnaamijyada qosol iyo sidoo kale koobkii ay ku sawiran yihiin maati ay u arkaan marka arkayna comment soo qora ra'yigiina